وهبين بشو أي تهي 4 سبتمبر waxaan joogaa Garowe jawiguna waa jawi roobaad sidaad ka arkaysaan shubka hortiina yaala waxaa da'aya roobka isaga ah waa roob xagaayo ah oo dhulka ku duxaya waxaa la yiraahdaa roobka noocaas oo kale ah waa roobka soo saara cawska waa jawi aad u macaan laga yaabee dadka ku nool meelaha roobka badan inuu samicno badan u sameyn balse anigoo ka imid Boosaaso iyadoo ay kulayl tahay jawiga noocan oo kale waxa uu yahay ciid waa jawi aad iyo aad u macaan jawigan oo kale waxa uu xambaarsan yahay dareen xeel dheer waayo roobku haddii aad faraxsan tahayna farxadii buu bulaala haddii aad murugsan tahayna murugadu cusleeyaa sida Dostoevsky markuu ka hadlayo habeenadii cadaadaa jawiga St. Petersburg wuxuu ahaa jawi aad u wasakh badan yacni rooban habeenkuna aad buu mugdi u ahaa jawiga noocan oo kale ah deegaanada aan ku noolahay sida Puntland ma aha mid mar walba la helo waa jawi khaas ah saaxiibka Cabdicasiis ayaa wuxuu leeyahay jawiga noocan oo kale wuxuu ku fiican yahay inuu noqdo dhacdo la xuso oo taariikhi ah badanaa marka qofku markuu wax qiimeynayo dhacdada wuxuu ku qiimeeyaa hadba waxa uu dareemayo ama waxa ku soo kordhay haddii marka aan dib u eego maantay ama maalmahan jawigu siduu ahaa magaalada Garowe ama dalka oo dhan jawigu si guud wuu wanaagsanaa marka laga reebo maantay oo qaraxyo 3 ah oo aad u kala culus ay ka dhaceen magaalada Beledweyne oo dad walaalaheena Soomaaliyeed ay dhibaato culus halka ku soo gaadhay waxaan u rajaynayaa dadkii geeriyooday halkaas in Ilaahay jannadiisa ku sharfo u dambi dhaafo u naxariisto dadka dhibaatada geystayna waxa ay la hooyanayaan xisaab adag nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis ayaa wuxuu ku leeyahay qofka muslimka ah fasax uu haystaa iyo nolol farxad iyo rajo fiican leh inta uusan dhiig daadin marka adduunkan iska gabaabsiga ah oo iska dhibaatada badan qofka dhiig muslim ah oo si wadareed ah u daadiyay waxaan u malaynayaa in uu intaas ciqaab ugu filan tahay waa haddii uu yahay qof Ilaahay aaminsan waa haddii uu yahay qof iimaan leh waa qof haddii uu yahay sidii saxaabiga nabiga sallallahu alayhi wasallam ku yiri ninkii gaalka ahaa markii hore markii la soo qabtay ashahatay saxaabigu dilay wuxuu nabigu weydiiyay ma qalbigiisa jeexday sidaas ayaa la weydiinayaa dhiigu waa wax culus aad u culus waa wax aad iyo aad u culus waxa la sahlan kara maaha qofka insaanka ah diinta islaamku waxa ay ku soo maaragtay u soo bandhigaysaa ama ku casumaysaa nolol farxad leh nolol dheer nolol qofku uu adduunyada waqti badan ku shaqaysto si uu aakhiro u badbaado nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri khayrukum man taala umruhu wa hasuna amaluhu dadkiina waxa ugu khayr badan kiina cimrigiisu dheeraado amalkiisu hagaagsanaado xitaa dadku haddii ay wax ka khaldan yihiin
fursaddii ay ku toobad keeni lahaayeen waxay ku heli karaan iyagoo hela cimri dheer. waxaan ilaahay uga baryaa intii dhimatay in uu u naxariisto, inta u qabtay in dadka muslimka la laayo diinna inuu ilaahay xaqa fahansiiyo. waayo waxyaabaha ilaahay dadku ciqaabay waxaa ka mid ah qofku inuu noqdo qof mustadcaf ah oo aana fikirin oo diinta iyo qiyaamka u daba fadhiya cid kale. kitaabka ilaahay markuu soo dirayay imaam iyo amiir iyo cid kale u daba fariiso kuma oran. diinta in la barto baa la isfaray. waayo diinta marka aad baratid waxaad ku xoroobaysaa in cid kale fasirkooda iyo fahamkooda aad u qaadatid, kadibna sida ay wax u arkaan aad u aragtid. taasna waxay u baahan tahay dadaal. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri man salaka tariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu tariiqan ila aljanna. qofkii qaada jid uu ku doonayo inuu aqoon ku kororsado, ilaahay wuxuu ku aadiyaa dariiqa jannada. ilaahay sidoo kale qur-aankiisa wuxuu ku yiri والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. walaalayaal dhibicda roobka ah ee ilaahay samada uu ka soo dejiyay xikmad weyn baa ku jirta, nolosha oo dhan baa ku jirta. ilaahay wuxuu qur-aankiisa ku yiri وجعلنا من الماء كل شيء حي. sidoo kale ilaahay wuxuu ku yiri وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. إلهي sidoo kale qur-aankiisa wuxuu ku yiri لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. marka dhibicdaas ilaahay uu samada ka soo dejiyay maaha biyaha kale mid la mid ah, waa biyo barakaysan. meesha ay ku dhacaan khayr bay ka keenaan, barwaaqay ka keenaan, nolosha oo dhanna barwaaqadaas ay ku xiran tahay. waa jawi aad u macaan, waa jawi naxariis ah, waa jawi mudan in lagu raaxaysto. jawiga isaga ah marka aan joogno waxaan waajib ah inaan ilaahay u mahad celinno. marka nabiga sallallahu alayhi wasallam uu roob soo curto wuu argagaxi jiray, waayo wuxuu ka baqi jiray in roobkaas uu noqdo ciqaab. waayo waxaa jiray ummado lagu soo halaagay roob. suuratul axqaaf waxaa ku jirta qoladii roobka aragtay ee ku faraxday balse uu ahaa ciqaab. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. إلهي waxaan ka rajaynaynaa roobkan inuu ka dhigo roob khayrkiisa aan helno, sharkiisana gees uu naga mariyo. ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtaan ilaahay waxaan ku baryaynaa nolol sharaf leh, iimaan leh, akhlaaq leh, jacayl leh, isbadbaadin leh, isu haynlin leh. ma rabno ummad islaam ah oo muslimiin ah oo diin iyo af iyo dhaqan wax walba ka dhaxeeyaan inay isku dilaan wixii ka dhaxeeyay, wixii madayn lahaa inay kala geeyaan. nabiga ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu qeexay wuxuu yiri waxaan kuu soo dirnay inaad tahay naxariis, wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. walaalayaal waxaa nagu aadan in aanu mar walba ahaano ummad islaam ah oo isjecel, oo istaageerta, oo isu naxariisata. nabigeena sallallahu alayhi wasallam waxaan rabnaa inaanu ka dhigno mid nagu faana oo aan noqono kuwii markii uu xasuustay isagoo asxaabtiisa dhex jooga uu ilmeeyey oo markii la weydiiyey uu yiri waxaa jira dad walaalahay ah oo i jecel oo i rumeeyey ayagoona i arag. marka ummadda islaamka waxaa loo baahan yahay in ay noqdaan ummad nasiib u yeelata inay noqdaan ummaddaas nabigu u ilmeeyey ee midaysan ee isjecel. adduun yaab leh baan joognaa, qiyaamkii akhlaaqdii uu sii xumaanayo. waxaa nagu aadan inaan noqono dadkii adduunka badbaadin lahaa, islaamka badbaadin lahaa.
intaasaa ugu muhiimsan. hadal badan hana buuxsho, ilaahay hana waafajiyo sida khayrka ku jiro. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.